dalkan wasaarada ka jirto shiida ka jiro madaxweynow taada kale masaajidka aan ka hadlaysid banaanka imo dhalinyaradan raadi dadka u sheeg maanta qarax liido madaxweynuhu waxa laga rabaa qarax liido inay jumcaha masaajidka u dhaxdishid runta ka sheegtid saraakiil wasiiro in xilku u qaada aheed in dhalinyarada aad dhahdid shabaab waay madaxweynuhu taas laga meelay madaxweyneena tahay dhalinyarada Soomaaliyeed raalgeli inaad siisid abaljas aad siisid haddaad sii weysan dhalinyarada u taala arrinkaas ayaa ka falceli doonaan waayo dalkan waa la og yahay wax yaalo indhaha isna astirna ma ahan madaxweynuhu qofka aragta dunnaado ina shabaab waay amba ina hebel waay dhahdid madaxweynuhu musurdagal ma ahan dalkan wasaarada ka jirto shiida ka jiro madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u tahay madaxweyneena tahay madaxweynuhu waxa laga rabaa dalkan wasaarada ka jirto ina ka fiican u hadashid ina oo mataqa dhalinyarada la hadashid raalgelin ka bixisid taada kale masaajidka aan ka hadlaysid banaanka imo dhalinyaradan raadi dadka u sheeg masaajidkan cibaado loogu talgalay siyaasad loogu talgelin madaxweynuhu masaajid siyaasad hor socay marsiis iska dhaaf oday Soomaaliyeed tahay madaxweyneena tahay madaxweynuhu waa ku barya madaxweyneena tahay waa ku ixtiraafsanahay kuma waxa gudbi karno maanta madaxweyne Soomaaliyeed tahay waa ku aqoonsanahay laguma dhihin madaxweynuhu dhalinyarada Soomaaliyeed oo shalay soo doortay campaign ku sameynay boorarka ku siday dhalinyarada hadda maanta dhahay shabaabka waa dhahda waayay madaxweynuhu waa ina raalgelin oo baljees dhalinyarada Soomaaliyeed aasiisa madaxweynuhu guriyaha waxa dhisanay walaad og yahay cid walba og cid ogeen malaha maanta guriyaha dhisanayo dadka dhisanay dadka ay xukuumadda u dhiibto oo taag daran waa oo agtaada ku dhow meesha xukuumadda kuma joogtee madaxweynuhu dadka bulshada Soomaaliyeed dadka dhaxgal karo oo u sheekay karo maxaa qabtay dhigi karto xukuumadaha u dhiibo wasiir ka dhigo meesha wasiir kuma joogaan madaxweynuhu wasiir keenso oo dalkan kaaga shaqeeyaan mid labaad wasiirka waxbarashada 400 dhalinyaro oo meel ay mataqa ku qalin jabisay ee hortooda ku dhashay dalka shiid ma ahan waa qalad dhalinyarada hadda 400 soo baxday intee aadayaan hal is weydiin su'aal waaye dhalinyaradaas niido ka dilay dalkan shiidaa ka jiro wasiirka waxbarashada waa la og yahay meesha awal scholarship wala hel jiray dawladda soo timaad ilaa hal scholarship la diray ma jiro wixii dhan waa soo xiray suuqii soo xiray wasiirow dadka yeelay dhibaataynin ummadan yeelay dhin shabaab waay madaxweynaha xashi qarla siye waa la og yahay wadankan wixii laga soo maray ganacsiyada maanta magaalada Muqdisho oo yar-yarka ah wax dhiirigeliya waa dhalinyaro inta lacag isku darsadaan 3 qof isku taraan ee dukaan furtaan si meel kale aad lahayn dib tahriib inta aadin dhalinyaro tahriib aad dhahda gabdhaha dhalinyarada magaalada Muqdisho dukaamada furteen oo magaalada Makal Mukarrama talaax dhabarka xayaat mool hala tago dhalinyaro u shidan waa la og yahay ma beenta la iska sheegay ma aha dhalinyarada meel aadan la yihiin ee lacagtu isku darsadaan eelkooda dhahan iyo inta lacagtu ku tahriib lahayn dukaamo yar furunayna dukaamada furteen dhalinyaro waa la og yahay madaxweynuhu dhalinyarada intaas kaama qabato madaxweyneena tahay waa kugu dhagnay madaxweynuhu jawaab ka bixi hadda ka bixi weysan madaxweynuhu dhalinyarada u taala